mas-uuliyiintii xisbiga wadani ee gobolka Hawd ayaa shaaca ka qaaday inay si rasmi ah iskaga casileen xilkii iyo xubinnimadii xisbigaasi iyaga oo ku biiray xisbiga talada dalka haya ee kulmiye. mas-uuliyiintani waxa ay sheegeen in maanta laga bilaabo ay hiil iyo hooba isla garab taagi doonaan xisbiga talada dalka haya ee kulmiye. xubnahan maanta iska casilay xisbiga mucaaradka wadani ayaa sidaasi ku sheegay shir jirayd oo maanta ku qabteen magaalada Balligubadle ee xarunta gobolka Hawd. xubnahan maanta iska casilay xisbiga wadani ayaa kala ahaa maayir ku-xigeenka hore degmada Balligubadle Mawlid Jaamac Yuusuf, xogayihii guud ee gobolka Hawd ee xisbiga wadani Shabcaan Cabdi Maxamed, gudoomiyihii garabka haweenka ee xisbiga wadani ee gobolka Hawd Siraad Cabdi Kaahin, gudoomiye ku-xigeenkii garabka haweenka ee xisbiga wadani ee gobolka Hawd Maryuun Jaamac Yoos, xogayihii garabka haweenka ee xisbiga wadani ee gobolka Hawd Hodan Cabdilaahi Xaaji Saalax, madaxii dhaqaalaha garabka haweenka ee xisbiga wadani ee gobolka Hawd Caasha Maxamuud Taagane, gudoomiye ku-xigeenkii garabka dhalinyarada ee xisbiga wadani ee gobolka Hawd Barre Cabdi Hurre, madaxii dhaqaalaha xisbiga wadani ee gobolka Hawd Triig Aydiid Aadan. anigu waxaan ahaa ninkii isagoo maayar ah ku wareegay xisbiga wadani, haddana maanta anigoo xildhibaan golaha deegaanka ah oo ka tirsan xisbiga wadani ahna xubin golaha dhexe ah oo kaarhkaygina kaa yahay, maanta si rasmi ah aniga oo aan cidna waxba ka sheegayn kana cabanayn aqoontayda iyo kaskayga iyo maankayga waxaan kula biiray xisbiga talada haya kulmiye. waxaanan leeyahay taageerayaashaydii igu taageersanaa xisbiga wadani, waxaan fariin u marinayaa hawada in aan maanta si rasmi ugu wareegay xisbiga kulmiye, sidaana ay igula taageeraan, igula soo raacaan, igula hambalyeeyaan. wassalaamu calaykum. anigoo ah Shabcaan Cabdi Maxamed, ana xogayaha gobolka Hawd ee xisbiga wadani, waxaan bartan ka cadeynayaa inaan iska casilay xoghayeenimadii xisbiga wadani iyo xubinnimadii aan ka ahaa gobolka Hawd xisbiga wadani kuna biiray xisbiga kulmiye. aniga oo magacaygu yahay Barre Cabdi Hurre, ahaana gudoomiye ku-xigeenka garabka dhalinyarada ee xisbiga wadani, waxaan maanta halkan ka sheegayaa iyadoo ay taariikhdu tahay 8 bishii 11aad 2017 inaan si rasmi ah uga digaroganay aniga iyo xubno kale oo badan xisbiga wadani kuna biirnay xisbiga horumarka sinaanta iyo cadaaladda ee kulmiye. aniga iyo dhalinyaradaydii aan gudoomiye ku-xigeenka u ahaa, runtii waxaan ka soo baxnay meel mugdi ah, waxaanan filayaa inaan ku soo biirnay meel aad iyo aad u ifaysa. markaa waxaan leeyahay aniga iyo dhalinyaradaydii oon hogaaminayo oo barbarkayga taagan inaan si rasmi ah ugu biirnay xisbiga talada dalka haya ee kulmiye. waxaan ahaa gudoomiyaha garabka haweenka ee gobolka Hawd, maanta waxaan iska casilay gudoomiyanimadii wadani, waxaan ku biiray xisbiga kulmiye. anigoo ah madaxa dhaqaalaha ee dumar haweenka, magacayguna yahay Caasha Maxamuud Ismaaciil, waxaan maanta si rasmi ah uga wareegay oo aan xilkii isaga dhigay xubintii aan ka hayay xisbiga wadani anigoo ku biiray xisbiga kulmiye. aniga oo magacaygu yahay Hodan Cabdilaahi Xaaji Saalax Abiyan oo ah xogayaha gobolka Hawd ee dumarka, waanan ka diga rogtay, waxaanan u rogtay xisbiga talada haya ee kulmiye. anigoo xisbiga wadani ahaa madaxa dhaqaalaha ee haweenka, anigoo iskana casilay ee gobolka Hawd kuna biiray maanta xisbiga talada haya ee kulmiye. anigoo ah Maryuun Jaamac Maxamed Guuleed, gudoomiye ku-xigeenka garabka haweenka ee wadani iskana casilay oo aan ku biiray xisbiga talada haya ee kulmiye. maxamed Jiciir Axmed iyo Axmed Maxamed Cawaale, warbaahinta qaranka Soomaaliland, magaalada Balligubadle.